بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولada Puntland mudane Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu maanta kulan la qaatay nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka Karkaar kulanka waxa looga hadlay xaaladda fatahaadii ka dhacday degmada Qardho marka hore waxgaradka iyo nabadoonnadu waxay madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani uga mahad celiyeen sida ay dawladdu uga jawaabtay waliba jawaabta degdega ah una maareysay xaaladii dhacday imaanshihii madaxweynaha halkan Qardho iyo waliba dhismihii gudiyada iyo sidii ay maartay jawaabta degdega ay dawladdu u bixisay ilaa ay haatan ay socoto maareynteedu saameyntii ka dhalatay masiibadii dhacday kulanka waxa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa togaga iyo waliba meelaha kale ee fududeyn kara ilma kale biyo sida kuwaas la mid oo kale ay soo galaan Qardho iyo sidii waliba loo caawin lahaa waxna loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen daadkii ku soo fatahmay Qardho madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu sheegay waxgaradka iyo nabadoonnada in dawladda ay ka go'an tahay in maartay wax la gaarsiiyo dadkii saameynta ay ku yeesheen midka dhaqaale iyo midka kaleba daadkii ku soo fatahmay Qardho iyo waliba in dawladdu ay xal waara u raadinayso in wax laga qabto togaga iyo meelaha kale ee fududeyn kara in mar kale biyo ay soo galaan magaalada madaxweynuhu wuxuu wali joogaa Qardho oo halkan oo safarka shaqo u joogo uu xoogiisu yahay sida dawladdu ay uga jawaabayso masiibadii iyo daadadkii ka dhacay halkan Qardho taasi oo dadna ay ku nafwaayeen dadna ay ku hanti beeleen waxa jira gudiyo kala duwan oo gudi hoosaadyaha hoostaga gudiga guud madaxweynuhu sameeyay gudida uu madaxweynuhu sameeyana ilaa haatan waxay ku hawleeyihiin qoloba waxyaabaha dhinacyada khuseeya sida maciishaadka wadooyinka dhismayaasha deegaanka dhammaan way wada shaqeynayaan walina waxa socday oo xaaladda adogeedeen inay soo dhamaadeen qiimeynihii la sameeyay iyo sida dawladdu ay isugu diyaarisay waxaana lagu baaqayaa in bulshada reer Puntland dal iyo dibad meel walba joogaan iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan caawinta dadka walaalahooda maartay ay ku waxyeeloobay oo qaybtood ku noloshoodii ku hanti beelay daadkii ku soo fatahmay Qardho iyadoo maartay akoono gaara loo sameeyay oo maartay gudiyada lagala soo xiriirayo oo dabcan aad warbaahinta ka aragteen waxaana wali socda jiray horena u dhacay in gudiyada qaar ay maartay siyaabaha ay u kala khusayso ay wax u gaargaarsiiyeen jawaabo degdega waxa jirtay in daawooyin iyo nafaqo iyo bustayaal iyana maartay lagu wareejiyay dadkii ay saameeyeen daadadka ku soo fatahmay degmada Qardho haatan waxa socda si hordhaca gurbad raashin oo iyana dadkaasi la gaarsiinayo madaxweynuhu aad buu ugu mahad celinayaa guud ahaanba shacabka Puntland iyo ka Soomaaliyeed sida ay ugu damqadeen ugana qayb qaadanayaan gurmadka Qardho insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay dhaqso soo kabato nolosha dadkii ay saameysay daadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho aad iyo aad